السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada waxaan ku guda jirnay topic-gii ku saabsanaa parenting ama qaabka ilmaha loo koriyo psychology ahaan iyo saameynta ay ilmaha ku yeelanayso haddii tactic fiican loo isticmaalo iyo dadaal la sameeyo in ilmaha markaas ay noqon doonaan ilmo wanaagsan. waxaan soo sheegnay biy'ada ay ku soo koraan xaafadda ama guriga environment-ga ay ku koraan inay key weyn ama uu sabab weyn u noqoto markay weynaadaan. waxay noqon lahaayeen inay sabab weyn u noqonayso. waxaan soo sheegnay in naxariista ilmaha la soo dhaweysto waxaag la siiyo ama madaxa loo salaaxo ama loo sheekeeyo ama waqti badan la qaato inay keenayso naxariis iyo jecel keenayso. waxaan also ka soo hadalnay sidii waalidka ilmaha dhalay ay isu jecel yihiin ama isu xishmayaan inay ilmaha example ka qaataan ayaan sidoo kale ka soo hadalnay. marka intaas oo dhan la sameeyo dadaal badan la sameeyo ilmihii aan waxba laga hagran iyagoo yaryar la dhaqaalayo oo raashinkii guriga wax ka baxsan loo gado marmar lacag la siiyo oo waxba aan laga hagranin inay keenayso marka ilmaha inay bartaan sidii wax loo bixin lahaa oo ay arintu noqonin anaa leh iyo anaa leh. marka haddii waalidku iyagu marka is jecel yihiin ay xisaabtamin xisaabtan xun ay ku jirin oo kan anaa leh maxaa wixii ii siin weysi iyo markaas waxay keenaysaa in iyaguna bartaan in aan wax la kala lahayn oo reerku ma aragtay hal family yahay iyagii iyo walaalahood inay is jeclaadaan hadhow markay weynaadaan in waalidkii ay jeclaadaan markaa wax ma aragtay uga soo noqdo ay u ogolaadaan dhaqaalaha iyo waqtigii ay waalidkii markaa ay u ogolaadaan. waxaa keeni karta inay marka horeba waalidka naftooda ay ku sii aruuraan jeceelkaas iyo afgarashadaas saqinimada inay sii baraan inay ilmahooda iyagu horta wax u ogolaadaan si hadhow markay weynaadaan ilmaha wax ogaanaan. taas waa marka arrin aad u muhiim ah oo dee iska caan. waxaa marka dhacda marmarka qaarkood iyadoo qofku dadaal kasta sameeyey in ilmihii sidii la rabay aanay noqon ayaa dhici karta. wax badanna way dhacdaa. saad la socotaan marka soomaalida qurbaha degan ay soo guurayaan ama ay yimaadaan wadamadan reer galbeedka ah waxa ay ku talagaleen inay nolol fiican iyo dhaqaale iyo shaqo iyo maaragtay horumar in ilmaha u soo raadsadeen ay ujeedadoodu weyn inay saa tahay baad moodaa markasta. marka uu qofka soo guurayo u soo guurayo dhul aan isku dhaqanaanay ahayn dadkoodii ama isku luuqad ahayn wuxuu qaadanayaa riski oo ah inuu ilmihii ku reebo meeshii ay deganaayeen oo aan nabadgelyo jirin ama dhaqaale xumo ay ka jirtay ama waxbarashana aanay lahayn. marka horumarkan uu soo aaday waxaa la socda riskigaasna marka waa inuu qofka sii og yahay. waa in marka aad sii og tahay in kulli ilmahaagu inay wada noqonaynin ama wadaado wada noqonaynin ama kulli dhaqaatiir wada noqonayn sida dadku jecel yihiin aanay ilmo toosan wada noqonin. saad la socotaa ilmuhu waa kala dabeecad. marka waalidka isagaa la raba in la socdo mid walbo dabeecadiisa uu ku soo koriyo oo midkii xanaaq badanna uu ugu sabro kii wax maqlana inuu si cadaalada ilmaha ku soo koriyo ayaa marka hore wanaagsan. marka way dhici kartaa in ilmihii marka ay ku maqli waayaan wax dhaca waay. qaabka marka aad ula dhaqantid markay arrintaas dhacdo ayaa iyadana waxay saameyn ku yeelan kartaa kuwa kale ka yaryar ayay ku noqon kartaa saameyn ama tusaale u noqon karaa qofkii haddii uu wadadii ka leexdo wax dhaca waayo waa iska dhalinyara. waxaa fiican marka waalidka inay hal meel kaga soo jeestaan oo marka horeba ujeedadooda ay markaa ay hal meel ka socoto ee xuduudii ay u sameeyeen ilmaha ay ilmaha ogyihiin xuduudda iyo waxyaabaha dhaqanka iyo waxyaabaha diinta iyo in lama taabtaan ay jiraan. haddii marka ay arrintu iyo xad ka gudbaan iyo xadkii ka baxaan qofkii marka xadka ka baxa waa in markaa waxaa wanaagsan ay waalidku caloosha intay adkaystaan ay ka saaraan. marka inta badan waxaad arkaysaa waalid cabanayo oo kule ilmihii oo dhan baa iga halaabay wayna dhacdaa waxa la ii duceeyo ama wiilkiiba iga xiran lacag ha la ii soo aruuriyo. taas waxay keenaysaa marka in kii markaa khaladka sameeyey la daba taagnaado oo isagoo aad u qaab daran xaalad xun ku jiro habeenkii guriga waqti xun intuu yimaado iska soo galo loo ogolaado oo markuu soo jabano markasta oo soo baaba'ana maaragtay dharka laga bedelo xoogaa lacag la sii la yidhaahdo wallaahi diseen yara anigaa dhale. waxay keenaysaa kuwii ka yaryaraa inay arkaan ay u fiirsadaan maaragtay in adigu go-aan aadan lahayn. marka kalsooni darradaas darteed ay kaa dareemeen ayaa waxaa dhici karta kuwii kalena inay ku kacaan wixii oo sidaa isku raacaan baa dhici karta. laakiin matalan haddii qofkii halkii cunugo oo xadkii ka baxay la gooyo oo la sugo inta isagu raag baaram ka gaarayo dhulka ka tagayo oo ilaa uu kasoo toobad keeno oo iska soo toosiyo la yidhaahdo adeerna dhaaf la yidhaahdo waxaa dhici karta kuwii kale inay ku badbaadaan ay ogaadaan meeshii isagu uu maray kii maraa in isna taa ay ku dhacayso xoogaa cabsi baa laga yaabaa kuwa kale inay gasho. laakiin haddii la daba taagnaado waxaa dhici karta inuu isagiina usu soo laaban kuwii ka yaryaraana ay ku daydaan ayaa suuragal ah. marka jahwareer badan ayay keeni kartaa ay waalidka ku keeni kartaa markii dhul ayan garanaynin dhaqankiisa ay garanaynin intay yimaadaan luuqadiisana aan aqoon ilmihii ay ka raacaan markaa dadkii kale ka raacaan oo dhaqan xun ay ka bartaan
fahmaan cabsi iyo jahwareer weyn ayay keentaa. inta badan waxaan arkaa niman masaajid dhisaya oo ku dhahaya lacag haddaad bixisid waan kuu duceynaynaa, ilaa dhib inuu ku haystay ogyihiin in ilmaha kuu toosiyo, ilaahay ilmaha kuu toosiyo. intaas haddaad bixisid 1,000 haddaad bixisid 2,000 haddaad bixisid ilmaha inuu ilaahay kuu toosiyo. way ogaadeen in dadkii ay qarsanayaan in caruurtii oo dhibaato ku dhex jirta waalidkiina ay weli hoosta ku qarsanayaan, ay iska aaminsan yihiin in maalmaha kamid iska soo toosan anaa dhalayseen uga sabraasay u leeyihiin baa ilmihii israacaya. markaasaa waxaad arkaysaa dumarkii oo ma aragtay dahabkoodii iyo lacagihii saydinkooda meel u yaal intay soo bixiyaan ay masaajido ku dhisayaan, masaajidihii iska bateen, sadaqadii way socotaa. marka jahwareerkaasaa keenayo oo meel laga jiro qofkii ma oga, wuxuu isleeyahay ilmiha kuu fiicnaadaan. laakiin haddii simple technique uu qofku sameeyo oo uu markii horeba ka tashaday uu ogyahay waxa uu sameynayo, waxaa dhacaysa in ilmahu ay kala badbaadaan. hal waad ka sabri kartaa, laba waad ka sabri kartaa haddii ilaahay ilmo badan ku siiyey, laakiin in adiga maragtay aan lagaa faa'iidaysanin oo aad controlka ilmahaaga lifekooda aad adiga gacanta ku haysid inaad sii og tahay baa fiican. taasna waxaa fududeyn kara inaad og tahay marka qaabka ilmaha u fakiraan iyo maskaxdooda oo ilaa iyagoo yar aad soo dhistid. waxaan ka hadalnay sida ilmaha loo dhaqaalayo, dhaqaalaha in ayuu ka yimaado waalidka marka hore, kadibna ilmaha ay u gudubto. ilmaha markaa wixii adiga aad bartid unbay kugula dhaqmayaan. marka waxaa arrintan aan kusoo koobayaa in ay waalidiintu ka fiirsadaan, ay go-aan ka gaaraan oo si wadajir ay hooyadii iyo aabihii ilmaha hal dhinac ay uga soo wada jeestaan. aanay dhicin in ma aragtay hooyadiina calool jilicsanaato oo ay tiraahdo ilmaha ha iga eryin oo ha iga dilin ii dhaaf. odagiina ama aabihiina inuu noqdo nin xoogaa ilmihii pressure saara oo wiilkan xag uu ku socdaa xagga ka timaada xoogaa xisaabtan hadday meesha imaatana aanay dhicin isfahmid la-aan aanay dhicin oo markaas marka lala hadlayo si jamaca loola hadlo, waalidkii iyo ilmihii oo jooga in lala hadlo. waxaan oo dhanna inaan la qarinin wixii markaa ceeba dhacdayna inaan la qarinin. in la qariyo familka aanay dhaafin waa muhiim, oo wixii markaa familka aanay dhaafin, laakiin familka intuu ka kooban yahay in ma aragtay qofkii qalad galaa in loo soo wada fariisto meeshii maxkamad lagu saaro oo aabihii iyo hooyadii iyo walaalihii kulli iyagoo fadhiyaan laga wada hadlo, la yidhaahdo maxaan sameynaa, qofkan xadkaas u gudbay waxaas iyuu sameeyey in la yidhaahdo oo laga hadlo, oo aan xoogaa xuxux iyo xanxan iyo arrinta noqonin oo warcad miiska lasoo saaro waxaasaan kugu aragnay gabadhii, waxaasaan kugu aragnay niyaho adigu ayaantan saasaa tahay, dadkaasaa saaxiib la noqoto xunxun mise wax u rabtaa la yidhahdo. taas waxay keenaysaa marka enforcement, dhaqankii guriga in la ilaaliyo, in loo wada sameyn yahay oo dadka dhan ay ka dhexayso in laga dhigo. markaas qofkii ka baxaa marka sirkalka, qofkii ka baxaa xadka oo reerka ka dhex baxana oo markaa banaanka soo istaago oo dadka dhan ay hal dhinac uga soo wada jeestaan, oo aanay noqonin ilmihii inay u qariyaan, albaabka ka furaan waqti dambe isagoo imaanayo, walaalihii ama hooyadii ay ka qariso gabdhihii ama wiilashii oo xun sameynaya ay ka qariso odageedii. taas waxay keenaysaa inay ka faa'iidaystaan. marka in hal meel looga soo wada jeesto oo ilmaha korintooda si wada jir ah loo wada koriyo ayaa wanaagsan. marka waxaa jirta marmarka qaarkood in caruurtii dadaal badan iyadoo lagula jiro, laakiin waalidkii ayna ogeyn meeshii wax ka khaldan yihiin. saad la socotaan soomaalida markay yimaadaan meelahan waa dad iska qaxootiya wadanka ku cusub, loqonaan aqoon, waxay markaa badanaa degaan guryaha raqiiska ah oo low incomeka dadka inkamkooda yar yahay ay degaan. dowladda ayaa markaa waxay u ogolaataa inay benefits inay siiyaan oo ilmihii caruurtii loo qiyaaso oo la siiyo waxay ku noolaadaan la siiyo. marka waalidkii inay isdhigtaan dee macnaha ma ka hadli karno oo ma dhihi karno maxaad u degtay meel inkamkeedu yar yahay, dadka isku wada income isku wada talent ma aha. dadka qaar iska waxbarta oo isla markiiba ka gudba oo xaafado fiican dega way jiraan, laakiin ma la dhihi karo maxaad ku dejiyo meeshan xun. waa wax ma aragtay si kumeel gaara loo soo mari karo, laakiin waa in lagu xisaabtamaa in danta lagu gaaro. oo haddii guri low income aad degan tahay aadan ku daahin oo aad ka tashatid, sababto ah quality-ga ilmaha meeshii inuu kusii baaba'ayo ayaa suuragal ah. midda kale waxaa oo iyadana muhiim ah inay caruurta nafteeda ogaadaan noloshan bilaashka ah oo adiga aad ku nooshaad ku korinaysid, iyaga naftooda inay meesha khalad ka fahmaan oo u fahmaan adduunka maaragtay noloshiisa inay iska fududahay. taasaa marka xataa waxay keenaysa inay iska dhaafaan inay dadaalaan ama ay wax bartaan, iyagana si hadhowd ilmahoodii ay u korsan lahaayeen in aanay waxba baran ayaa dhici karta. khiyaanada iyo beenta iyo inkamkii ugu bato inay dowladdii ka qariyaan oo ilmihii iyaga oo joogo hortooda lagaga sheekaysto beenta la sheegayo ninkan iyo naagta ma wada joogno. arrimahaas ka qaab daran oo dee laga dheregsan yahay ayaa jiro. culimmadana aad bay uga hadleen, marka ma rabo inaan kusii dheeraado, laakiin waxaan rabaa inaan ka kormaro oo aan idhaahdo in
mas'uuliyadda adiga ay kaasoo bilaabanayso ilmaha ay ku arkaan adoo biil bixinaya ay ku arkaan adoo guriga kiradiisa bixinaya ay ku arkaan adoo biilkii korontada lacagtiisa bixinaya ay ku arkaan marka waxay ogaanayaan markaas in lifeku marka uu adag yahay xataa appreciation baa laga helayaa waxay ogaanayaan inaad u dadaashid waa inaad u sheegtid oo ay og yihiin intaad guriga bixaysid ay kula soo bixiyaanba meeshaad ka bixinaysid aad u wadid ay arkaan inta kaa baxaysa oo qarasha kaa baxaya ay arkaan training bay ku qaadanayaan arrintan iyada ah waxay ka baranayaan mas'uuliyadda in sida reerka loo korsado ay ka baranayaan marka lifeka iyagu marka ay rabaan iyaga markaa dooran kara ama waa inay taada adiga aad ku jirtid intay arkeen dhibkeeda inay markaa ka baxaan oo ay nolol ka fiican ku noolaadaan baa dhici karta sababtoo ah waxaad bartay mas'uuliyaddii baad bartay waa inay kula soo adeegaan waa inay lacagta wax ka bixiyaan bay jeegaga kula qoraan in xisaabtamo hal mar iyadoo la wada joogo inta la yimaado leeyahay bishaan maxaa nagu baxay waalidkii inta isa soo horfariistaan ilmihii jooga la yiraahdo maxaa nagu baxay xisaabtan noocaas marka aad ilmaha hortooda ku samaysidna mas'uuliyaddii ayaad baraysaa haddii dee guriga qarash ba aan kugu bixin oo dowladda kaa bixiso xoogaa yarka aad heshidna afrika isaga darsatid guryo xagga ka dhisatid iyagu waxaas waxay arkayaan khayaanada iyo beenta ku jirtay arkayaan noloshii waxay u arkaan marka nolol iska fudud marka inayan meelna u dhaqaaqin oo iyagana ay taad ku jirtid oo kale ay hadhowdi ay markaa tamaniyaan ama ay raboodaan ayaa dhici karta oo aan iyaguna hore u socon